وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. إلهي baan ku mahadinaynaa inaga dhigay bani aadam. saawada ogsoontiinba bani aadamku makhluuqa ilaahay abuuray waa khalqiga ugu karaamo badan ee ugu khayr badan weeyaan. aadam calayhi salaam markuu ilaahay uu doonay abuurkiisa, malaa'igtu ilaahay u sheego wuxuu ku yidhi: innii jaacilun fi lardi khaliifa. khaliif ayaan arlada dhexdeeda ka yeelanayaa baa ilaahay yidhi. khaliifatullah, bani aadamku waa khaliifatullaahi fii ardihi. khaliif macnaheegu waa maxay? waa qofka ilaahay abuuray garanaya, diintii loogu talagalay inuu raacana raacsan, sida ilaahay uu doonayana u socday aanan u socon sida nafsadiisu ay doonayso. khaliif. markaasaa ilaahay jalla wacalaa malaa'ig buu soo diray. waxau u soo diray arlada inay yimaadaan oo carro soo ururiyaan, ciidda soo ururiyaan. 40 sanaa la yidhi ayay malaa'igtu carrada nebi aadan laga abuuraya ay soo qaadqaadayeen. ciid meel keliya laga soo qaaday nebi aadan lagama abuurin. waxaa laga abuuray inta nuucee ciiddu arlada dusheeda ay tahay ee ay u kala qaybsan tahaa, qayb looga soo qaaday. lidaalika bini aadamku iskuma eko. qaar baa dhaadheer, qaar baa gaagaaban, qaar baa cadcas, qaar baa cadcad, qaar baa madow, qaar baa maarina, qaar baa qurux badan, qaar baa foolxun, qaar baa dabeecad fiican, qaar baa dabeecad xun. markaasaa nebigu yidhi sal alla alay slam, qof walba carradii laga abuuray meesha laga soo qaaduu qabrigiisu noqonayaa. minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay yidhi. ciiddaasaa niga samaynay, ciiddaasaa nigu celin doonaa dhexdeeda, mar dambana iyada niga soo dhex saari doonaa baa ilaahay yidhi jalla wacalaa. markaasaa qof walba ciiddii laga qaaday, ciiddii laga abuuray jidhkiisa meeshii laga soo qaaday buu qabrigiisu noqonayaa. lidaalika waxaad arkaysaa qof baydhabo ku dhashay oo baydhabo ku barbaaray, laakiin maraykan ku dhimanayo oo lagu aasaayo maraykan. qaar baad arkaysaa reer muqdisho ah, laakiin meeshay ku dhasheen waa muqdisho, meeshay ku dhimanayaan laga yaaba inay noqoto shiinaha. qof walba ciiddii isaga laga abuuray meeshii laga soo qaaday buu ku dhimanayaa, halkaasuu qabrigiisu noqonayaa. marka 40 sanay malaa'igtu carrada nebi aadan laga abuurayo ay soo qaadayeen bay culimmadu yidhahdeen. 40 sanana baa la yidhi ciidda ayaa laysku laaqaayay. khalaqahu min tiin, dhoobaa laga sameeyey, dhoobo. carradiibaa intoo 40 sano laysku laaqayay oo qoyaneyd, iyadoo qoyan ayay noqotay tiin. 40 sanana nebi aadam calayhi salaam waa la sawiray. khalaqakum uma sawarakum fa axsana suwarakum, waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay. aadam calayhi salaam sawirkiisu 40 sanuu taagnaa bay yidhahdeen culummada qaarkood. markaasaa malaa'igta ayaa imanaysay, way la yaabanaayeen khalqigan ilaahay abuurayo. waana loo sheegay in la samaynayo khaliifatullaahi fii ardihi. markaasee malaa'igtu waxay u tagaan ibliis calayhi lacna. ibliis isagu malag ma ahayn, jin ayuu ahaa. insiga hortood arladan iyakaa camiray oo ku noolaa. deedna markay fasaadiyeen ee jinkii arlada dusheeda fasaad iyo munkar iyo macaasi iyo gaalnimo ay muujiyeen, ayaa ilaahay jalla wacalaa adduunka uu ka tirtiro, uu ka qaaday. laanna dadka ilaahay khayrka caabudaya mufsidiintu adduunka dusheeda inay ku noolaadaan xaq uma leh. innaka waxaan moodaynaa gaalada sababtooda adduunyadu inay ku taagan tahay may
adduunyadu waxay ku taagan tahay waa dadka mu'miniinta sababtooda laa taquuma saacatu xataa laa yuqaalu fi lardi allah allah arlada dusheeda inta qof mu'mina oo allah low ilaahay garanaya intuu jooga buu nebigu yidhi saacadda qiyaamadu ma dhici doonta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta dadka mu'miniinta muslimiinta muwaxidiinta adduunyada ilaahay uu ka qabto xadiis saxiixa waa kii nebigu lahaa dabayl baa ka iman doonta min qibali shaam dabayshaasi qof kasta oo mu'mina misqaala min darra oo iimaana qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi ayay raadinaysaa buur caloosheeda hadduu qofka mu'minku uu ka galana dabayshaa intay ka daba gashay ruuxda ka soo qabanaysaa fayabqa shiraaru lkhalqi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka dad ugu shar badan baa arlada dusheeda ku hadhi doona kuwaasoo macruufna aanan isfaraynin munkarna aanan iska reebaynin ibliis baa markaa sheekh iskaga soo dhigi doona oo ku odhan doona aniga miyaanad i ajiibaynin markaasay odhanayaan han ku ajiibne maxaadna amraysaa faya'muruhum bicibaadati alawthaan waxau amri doonaa markaa qoryaha iyo dhagaxda inay caabudaan ayagoo dadkaasi qoryo iyo dhagax caabudayoo mushrikiina ayaa haddana ilaahay arsaaqada dhinac walba uu ka dhigayaa deedna kuwaabay saacadda qiyaamadu dushooda ku dhici doontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dadka adduunyadu waxay ku taagan tahay waa dadka muslimiintu adduunka intay joogaan bimacnaa ruuxdiiba adduunyada ku jirta weeyaan qof muslima adduunka intuu joogo adduunyada ruuxdiibaa ku jirta laakiin dadka muslimiintu maalinta adduunyada ay ka dhammaadaan ee ilaahay adduunyada uu ka dhammeeyo waxaad ogaataa ruuxdii baa ka baxday koonka hadday ruuxdu koonka ay ka baxdana waa jir bini aadanoo ruuxdii ay ka baxday weeyaanoo deedna markaa calamka ilaahay waa baabi'inaya deedna uu nidaamka dhan uu isbedelayaa yowma tubaddalu alardu hayru alardi waasamaawaat wabarazuu lilaahi alwaaxid alqahaar samaawaadka iyo araadiinta ayaa nidaamkan ay hadda aan ku naqaana nidaam ka duwan ayay noqoni doonaan oo samada waa la laabi doonaa dhulkana waa la duubi doonaa adceeddana waa la qaban doonaa xidiguhuna way soo daadan doonaan badahana waa la engenji doonaa arladan aan ku joognana sida xasiirka yareed ku tukato aad u laabto ayaa arlada dhanba loo laabi doonaayo meelba la iska dhigi doonaa marka arladan intaan insigu intaynan iman jin ayaa arlada ku noolaa jinkii markay arlada fasaad iyo munkar iyo gaalnimo ay ku dul camireen fasaad markay arlada dusheeda ay ku dul muujiyeen ilaahay malaa'igta wuxuu ku amray kuwaasi arlada dusheeda inay ku noolaadaan xaq uma leh ka soo qabtoo ka tirtira baa lagu yidhi marka ibliis calayhi lacna oo markaa caabid ahay oo cibaado badnaa ayay malaa'igtu u shafaacad qaadaan ay ku yidhaahdeen ilaahow addoon wanaagsan oo saalixa ayaa ku dhex noole addoonka ha laga reebo deedna markaasaa ilaahay shafaacaddii ayuu ka aqbalay malaa'igta ibliis intoo laga qaada dhulka ayaa samada la geeyey deedna halkaasuu ilaahay ku caabudaya sanawaad badan marka malaa'igtu waxay u malaynayeen ibliis isagu inuu iyaga ka fadli badan yahay deedna markaasay maaragtaan intay u yimaadaan bay ku lahaayeen ibliisow imtixaan baa soo socda oo abuurkan la abuuray ee la sawiray waa lanagu imtixaamayaaye inuu ilaahay imtixaanka naga badbaadiyo ilaahay noo baryo ilaahay noo weydii markaa buu u ducayni jiro wuxuu odhan jiray ilaahay imtixaanka soo socda hayniga badbaadiyo ilaahay fidnada hayniga badbaadiye buu odhan jiray isagaa iska reebi jiray maaragtaane ducada iyakana waa u ducayn jiray ducadii iyaka waa loo aqbalay laakiin imtixaankii isagaa ku dhacay baa layidhi inaan aamusnamo qurux badno ya inaan fadhiisanana ma qurux badno waa maskiid meeshu عفوا فديدا raalli ahaada فديدا رالهادا deegaydan فديدا marka qaadana raalli ahaada fadhiista insha Allah waad maqlaysaan si fiican baad u maqlaysaan فديدا رالهاada marka qaadana raalhada فديدا maqsuudka hadalka inaad maqashaan weeyaan miskiidkii ilaahay baa noo waasicinaye dad baa dibadda fadhiyo dhegaysanaya marka inaguna fadhiista insha Allah Allah ina barakeeye ku salliya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي
لأن مركز إلهي تبارك وتعالى آدم عليه السلام روح دي بإلهي كوافوفو روح دي وأمر إلهي ويان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح ذا أيك ويدينا يا أبا نبي قال له يري لكن واحد شرط الروح وأمر إلهي ويان روح ذا وأمر إلهي ويان إلهي أمر كيس ويان روح ذا لأن آدم عليه السلام أمر إلهي بكي مدي لأن جرجس الروح ذا مركيش النبي آدم عليه السلام وحيو الري أفكيس كصوبح وحوها أوهن بصودي لأنه وحيري الحمد لله لأن مركز ربي يقول يرحمك الله الحمد لله وأرجي وجوه الرئي النبي آدم أفكيس كصوبحي بعد العطس عند سنة كذب آدم عليه السلام وحيري الحمد لله وأرجع عجيب أرجعس أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله والنبي قول عليه الصلاة والسلام بريا إله إلا بريا وحا وقفل لبدن إنا تراد الحمد لله حس إله إلا حسن وحا وقفل لبدن إنا تراد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا قولوا لا إله إلا الله قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الإسلام إلهي أنكم هذا نعمة إلهي نسي إلهي أنكم هذا آدم عليه السلام روح ذي مرقى لقوا أفوفا وهن بصوري لأن مرقى سود الحمد لله مرقى ربي ودعي تبارك وتعالى لأن مرقى ملائكة الأمرين والسجودان عليه السلام ملائكة الدمان والسجودين لكن إبليس عليه اللعنة أسكدي سجودي ملائكة أمر كي بيقاتين لكن إبليس أمر كي إلهي أسكدي دي سفي عن هذا القول ليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين بإلهي كود يا إبليس maxaa ka manciyay oo ku diiday inaad u sujuudo khalqigan anigu aan gacantayda ku sameeyay miyaad kibirtay baa lagu yiri mise kuwa iskor yeelay baad ka mid noqonaysaa qala ana khayrun minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin ana ka khayr badan buu yiri ibliis wuxuu leeyahay nabi aadam alayhi salaam ana ka khayr badan isagana dhoobaad ka samaysay anigana naar baad iga samaysay ملائكة النور بلغ سمي النور خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من نار وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم بنبي ملائكة النور بلغ أبو ري جن كان النار بلغ أبو ري ورسولك يري آدم عليه السلام نوحي لنوصف بلغ أبو ري دوبا يا لغ سمي مرقى ملائكة النور كان لغ أبو ري يكون مي شيئا لكن أمرك إلهي بيقاتين وسجود بالليلي وآدم سجود عليه السلام لأن مركز النبي آدم سجودا يكون إبليس أما يسجد سجودا وحود دي هذا الكو مدو شانس وهوستا مدو شو يعني dadka dusha jooga ha yara aamusaan dadka korka saaran ha aamusaan dadka sare joogan ha fadhiistaan fadheeda ya fadheeda ma sha Allah fadheeda ya ahla baydaba fadheeda ma sha Allah ya ahla baydaba ma sha Allah خير جعيل بين قبض خير جعيل وبلد القرآن بلد العلم والعلماء وودنك القرآن كاللقو يقاني وودنك علماء علمي قال له صدون جريت جوبتان الحمد لله ده هذا فريست لكن الحمد لله وصلي رسولك إبليس عليه اللعنة آدم محاد يقول سجوده وذيبا اللي يري وعرانا كخير بدن بويري وعلى الدنبقي وقوه الرئيي خلقه إلهي أي كقلان دنبقى وحو كبلا من كبر مكبلا من كبر اسويني
inuu qofku wax ismoodu isweyneeyo. dembigii labaad ee ilaahay laga galana waxa uu ka dhacay nebi aadam calayhi salaam. dembiga nebi aadam waxa uu ku salaysnaa waa ashahwa, nolol jacayl. ha sii noolaatide geedka cun baa lagu yidhi. ibliis baa ku yidhi geedka haddaad cuni lahayd ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama jannadaad weligii ku wari lahaydeen buu yidhi. dembina waxa uu ku yimiday asaaskiisu wuxuu ahaa shahwad, nolol jacayl, adduunye jacayl, raaxa jacayl. laakiin dembiga ibliis waxa uu ku yimiday asaaskiisu wuxuu ahaa isla weyni buu ahaa. lidaalika qofku hadduu mutakabir noqdo waa khatar qofkaasi inuu toobad keena way adag tahay. laanna mutakabir waa ilaahay jalla wacala. alcizu izaari waalkibriyaau ridaa'i faman yunaasicunii cadabtuhu baa ilaahay yidhi caza wajalla xadiis alqudsi. alcizu izaari guushi waa guntigaygii, waalkibriyaau ridaa'i kibirkuna waa go'aygii baa ilaahay yidhi. labadaa ninka igula dooda baa ilaahay yidhi waan cadaabi baa ilaahay yidhi. laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibri baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofka dhowracase in la ego kibira qalbigiisa ay ku sugan tahayna janno ma gala buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. kibirka ayaa la macneeyo, waxa lagu macneeyey waa xaqa oo qofku in kolka loo sheego uu qaadan waayo iyo dadka u yaraystuu xaqiro weeyaan. fa ibliis dembiga u galay waxa asaas u ahaa isla weyni baa asaas u ahay. lidaalika toobadda ilaahay uma furin, toobadna ibliisna ma toobad keenin. waxa qur-aanku noo caddeeyey inuu naar ku noqon doono naar, wixii isaga raacayna naar bay ku dambayni doonaan. aadam dhoobaa laga sameeyey, laakiin ibliis waxaa laga abuuray maaddada koonkan ilaahay uu ku abuuray ee kala quwadda badan leh. maaddada saddexaad baa ibliis laga abuuray. maaddada saddexaad kaa'inaadkani noo muuqda waxa ugu awood badan buuraha waxaa ka awood badan birta buurta way kala jeexdaa. birahana waxa ka awood badan maaragtaane waa dabkuna birta xadiidka u dhalaaliya. dabkana waxa ka awood badan maaragtaane waa biyuhu dabka way bakhtiyaan. biyahana waxa ka awood badan waa dabayshuna badda intay qaaday beriga ku dhifataa. marka ibliis waxaa laga abuuray dab baa laga abuuray. dab maxaa laga abuuray? dab waa la yidhi waxaa laga abuuray maaddadii saddexaad. dabka waxa ka adag dabka waa biyahana waxa ka adag waa dabaysha. laakiin aadam waxaa laga abuuray baa la yidhi maaddada sideedaad baa laga abuuray jidhkiisa. ibliis markaa wuxuu eegay maaddada isaga laga abuuray waa dab, maaddada nebi aadam laga abuurayna waa dhoobaa laga abuuray. ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. anaa ka khayr badan buu yidhi aadam, isaga waxaad ka samaysay dhoobaad ka samaysay, anigana waxaad iga abuurtay buu yidhi maaragtaane dab. markaasaa ilaahay yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim. adigu waad madax adagtaho waad qalbi adagtahee naxariistayda ka dhacbaxoo ka dheerow baa lagu yidhi ibliis. leanna naxariista ilaahay baa laga dheereeyey. marka malaa'igta maaddada iyaka laga abuuray, maaddo koonkan nidaamkan caalamkan aan ku nool lahayn taalla maaha. iyaka nuur baa laga abuuray, nuur baa laga abuuray malaa'igta. laakiin jinku isagu maaddadii laga abuuray ee maaddada aadam laga abuuray buu isku qiimeeyey. amarka ilaahay buu jebiyey, beedna uu qiimo dhacay. ilaa qiyaamahana waa la lacnadayaa. maalinka qiyaamaha markuu soo baxana naartaa loo qaadi doonaa. kursigiisu naarta jahannam u dhex yaallaa. ama malaa'igtu ayaku may eegin waxa iyaka laga abuuray waxa aadam laga abuuray ismay barbar dhigine waxay eegeen amarkan ayaa soo bixiyey. an isjuduu liaadama ayaa yidhi, allah baa yidhi. leanna iyaku amarka ilaahay bay qaateen. makaanadoodii iyo sharaftoodii malaa'igtu ilaa qiyaamaha way leeyihiin. marka khalqiga adduunyada ku nool
labada طريق bay kala marayaan qolo amarka ilaahay raacaysa oo shariicada raacaysa oo ilaahay weyneynaysa oo amarka ilaahay weyneynaysa oo xagga sare amarka ilaahay ka yimid qaadanaysa kuwa adduunyada intay joogaan iyo aakhirada kor baa loo qaadayaa kuwa dhulka eega dhulka ibliis wuxuu eegay maadada laga abuuray buu eegay kuwa iyakuna eega dhulka waa maxay waxay haystaan bay qiimeynayaan waxay yihiin bay qiimeynayaan qabiilkay ka dhasheen bay isku qiimeynayaan waxay maada haystaan bay isku qiimeynayaan kuwaas ilaagtiisa way qiimo dhaceen adduunkan iyo aakhirana qiimo mala kuwaas marka bini aadankana laba shay baa bini aadankana laga abuuray aadam calayhi salaam aljasadu waaruux ruuxdu xagga ilaahay bay nagaga timiday amaa jasadku caradana laga abuuray isaga waa ciidanoo la isku geegeeyey jasadka bini aadamku marka jirhkeennan maaha waxa qiimaha leh jirhku qiimo ma leh jirhka bini aadamka maxaa ka buuxa biyaa ka buuxa waa biyo waa dheecaan waa dhiig waa hilib waa dub waa lafo intaasaa bini aadamka ka buuxda jirhkiisa marka intan maaha waxa qiimaha ku yeelaysee waxa bini aadamku qiimaha uu ku yeelanayaa waa amarka ilaahay markuu qaato inna akramakum cinda allaahi atqaakum baa ilaahay yidhi kiina inigu alla ka cabsiga badan leh unbaa ilaahay agtiisa inigu sharaf badan marka waxa lagaa abuuray baa la yidhi ha eegin mar walba waxaad eegtaa waxa adiga lagu abuuray eeg waxa lagaa abuuray ha eegin waxaad haysatana ha eegin waxaad adigu aad tahayna ha is eegin qabiilkaad ka dhalatayna ha eegin oqoontaad leedahay adduunyadaada ha eegin darajaadka adduunyada waxaad ka haysataa ha eegin waxaad eegtaa wixii lagu abuuray waa maxay waa cibaado waa inaad eegtaa ilaahay amarkiisa ma haysataa mise ma haysatid falyandur اlinsaanu mima khuliqa min maa'in daafiqin yakhruju min bayni الsulbi wاltaraa'ib inahu calى rajcihi laqaadir yowma tubla الsaraa'ir famaa lahu min quwatin walaa naasir ilaahay baa inoo sheego bini aadanku saanad isku cajabin baa lagu leeyahay bal waxa lagaa abuuray uu dib ugu noqo adigu maxaa lagaa abuuray nudfa biyo maniya ayaa lagaa abuuray haddaad kor uga baxdana aadam calayhi salaam dhoobaa laga abuuray basharka kaleo dhanna nudfo ayaa laga abuuray markaad dhimatana waxaad noqon doontaa jiifaad noqon doontaa jiifa birxibaa gebigaa uu isku bedeli doonaa haddadan inta qofka adduunyada uu ku nool yahayna saxaro iyo kaadi iyo dheecaan iyo dhiig baa ka buuxa jirhkiisa deedna ilaahay baa ku asturayo bini aadamka kugu dhex asturaya marka innaku waxaanaan maanta qiimaynayno maaha wuxuu ilaahay nagu qiimaynayo dadka zamankan maanta khaasatan zamankeennan aan joogno waxa bini aadamka lagu qiimaynayaa maanta waa adduunyadiisa lacag dhaqaalahu haysa dadku ku qiimeeyaan wuxuu leeyahay baa qofka maanta lagu qiimeeyaa waxa bini aadamku ay kugu qiimaynayaan waa wax dibadda kaa yaalla laakiin ilaahay rasuulku waxaa dibadda kaa yaalla kugu qiimayni maayaan ilaahay rasuulku waxay kugu qiimaynayaan taqwadda qalbigaaga ku jirta iyo akhlaaqda wanaagsan baa lagugu qiimayn nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka inta badan ee jannada geliddeeda maxay ku mutaystaan noo sheeg waxa uu nebigu uhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi iyo dabeecadda wanaagsan dadka intooda badan waxaa la yidhi nebi allow jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg wuxuu yidhi alla ka baq iyo dabeecad wanaagsan alla ka cabsi haddaad leedahay xaqa ilaahay si fiican baad u gudan dabeecad wanaagsan haddaad leedahayna xuquuqda bini aadamku ay kugu leeyihiinna si fiican baad iyadana iskaga ilaalin diinteenna islaamkuna labadaa tiir bay ku taagan tahay xuquuqullah iyo xuquuqulcibaad xaq ilaahay baa kugu leh xaqa ilaahay kugu leeyahay waa maxay waa inaad ilaahay aad caabudid oo cibaadada ilaahay aad cid kale ku ladhin dariiqadii nebigana aad ku caabudid calayhi salaatu wasalaam xuquuqulcibaadna waa maxay khalqiga bini aadamka ilaahay kula abuuray adduunyadan inaad ixsaan u samaysid
haddaad ixsaan badan aanan lahayna inaad bini aadanku adiga sharka kugu abuuran ay ka nabad galaan taasaa nabiga la weydiiyey dadka intooda badan jannada galideeda maxay ku mutaystaan waxa uu nabigu dabeecadda wanaagsan iyo alla ka cabsiga buu nabigu alla ka baqaya dabeecadda wanaagsan bini aadankana ilaahay kuma qiimeynayo dhaqaalahaad haysato ilaahay kuguma qiimeeyo dhaqaalahaad haysato intuu leegyahay ubadka aad dhashay intay yihiin mansilada adduunyada dadka agtooda aad ku leedahay intay tahay warshadaha aad leedahay ilaahay kuguma qiimeynayo xoolaha iyo beeraha aad bannaanka aad ka samaysteen ilaahay kuguma qiimeynayo ilaahay bini aadanka waxa uu ku qiimeynayaa waa diin ilaahay wuxuu ku qiimeeyaa waa alla ka cabsi Abu Sufyaan ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga inuu la galo heshiis sulxi buu u yimid heshiis inuu nabiga la galo calayhi salaatu wassalaam markay nabiga wada hadleen uu sii noqonayay ayuu soo maray majlis xalaqad meel ay fadhiyaan Bilaal iyo Salmaan iyo Suhayb iyo Abi Bakar ay joogaan ayuu Abu Sufyaan oo markaa wali aanan islaamin ayaa sidaa u soo agmaray markaa Bilaal baa yidhi wali cadowga ilaahay seefti ilaahay maynan qaban buu yidhi يعني ولا عدو إلهي مون دمن ولا من نول يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيها الله كويري ورم أوديجي قريشد السيد كوها ميل هذا الكاكليدي هم بيري لأن مرقابة يكو إسكاء مسان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسعودوا النبي وشيخ عليه الصلاة والسلام مرقابة النبي هلو النبي وحيري لعلك أغضبتهم يا أبا بكر رجع دي ملاوات كعريسي سيبو نبي كويلي بلال يا عمار يا سلمان يا سهيب هذا القامر قد كتري ملاها ويكعرودين لكن وحادوا أبو بكر الصديق هذه الرجعات كعريسي سي إلهي بات كعريسي سي وقوم رسولك كويلي بلال الحبشي رضي الله عنه يا سلمان الفارسي يا سهيب الرومي يا عمار بن ياسر رضي الله عنهم رجع ضعفاء فقراء المهاجرين تا هدي لقى عريسيو وعادوا قاتا إلهي بل لقى عريسيي هدي لقى فرحيين إلهي بل لقى فرحيين أقول لعلك أغضبتهم بالنبي يقول يا أبا بكر ملاها رجع إنها كعريسي سبا يا عبد مرقى سؤال يا رسول الله ما قرأكرو مرقى النبي يقول أقول أبو بكر هدي رجع كعريسي سو نكي كعريسي سي أدوك أب نقطي وعادوا قاتا إلهي بل كعريسي سو أقول كويلي أبي بكر وصور دو ويمدو وحو كيري ولا الله يوميا نقا عريسيي مرقاس سو كيري هذين يكونا ما يسكتك بيكون هذين دنبياك الله الدافع أوركا وحبسكو قمي قبنين قلبي وقو واسع بوها مركيبا ويسكا عفيين ويسكا سامحين لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلق أمد نبي محمد وكل يهي قرانا يا أكتو دقيمو أبو بكر كل يهي وقيمه وأنك نبي محمد نسو هجرود عليه الصلاة والسلام مالنتي نبي محمد عندنا سور راعي ويدي نجي نبي محمد كليجي سور راعي بوها مالنتي عربي نبي قد دقالها كقوستي نجي دقالي سنبي الله سمي بوها مالنتي قريش نبي قد دون يسي نجي نبي محمد قدك الله قال نبي محمد قدك كل جري بوها أبي بكر الصديق صحابي وحوها صحابة داكتو ذا المنزلة سرسة كله marka ilaahay jalla wa ala naguma qiimeeynaya waxyaabaha dadku ay dibadda ku haystaan ee bini aadanka waxa lagu qiimeeyaa dhaqanka wanaagsan ee noloshiisa ku dhex jira hadday iimaan tahay hadday alla ka cabsi ay tahay hadday cilmi ay tahay hadday taqwad ay tahay hadday akhlaaq wanaagsan ay tahay taasa ilaahay kugu jeclaani haddii ilaahay ku jeclaadana bini aadanka oo dhan baa ku jeclaan Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa soo galay magaaladii Baghdad waa ahdigii Harun al-Rashid weeyaan magaaladii waxa laga dareemay bajah sawt baa laga dareemay iyo guux iyo saddex socod dadna markaasa xaaskii Harun al-Rashid Zubayda la oran jiray ayaa waxay ku tiri xaraskeyga ilaalinayay bay ku tiri magaalada maanta maxaa ku soo diray ii sheega markaasa lagu yiri imaam baa soo galaya imaamada aimada muslimiinta kamida
لأن مددك مسلمين تودن نكا بي ماركتاني أصو ماركتاني أي كل كيس مساجد يا خير أصو عمريان لأن مركاسا مساجد في الجامعة أيو صوب لي بقول كنوا قفدت كبدا أيا مركبة حلقة فريستي dadkaasi adab bay lahaayeen cilmi bay lahaayeen alla ka cabsi bay lahaayeen akhlaaq wanaagsan bay lahaayeen culimada qadarkayga ayay garanayeen dadka islaam muuminka bariga iimaanka lagu qiimeeyay muslimiintu diinta isku jeclaayeen caamada muslimiintu culimadooda ku xidhnayd caamada culimada jeclayd culimaduna caamada la soconaysay wax baraysay masaajidkii buu soo galay markiiba darsi buu bilaabay لأن الشيخ يوحن بالصودي بالليلي محاضر ملايين مركو يوحن بالصودو الحمد لله ويري بغل كن أوقف أيا من سميم قلوبهم أيكو قلبك كجع الوحي قادين هل مركلية يرحمك الله بيدادين صوتك كسوة بحي بغل كن أوقف أيا قصرك بغرك اللقم مغلي زبيد وياتو وحي كترد عيدنك إلالين يدي كتري ومحي قيل باسي وعلى الرباط مدعيني شيخ باهن بالسودة ودعاني اللو دعيني ياد مقاشا لقويلي لأن مركز غيرة قوتي مسوي مسيرتي هارو الرشيد بيوقع شيء كعسي كتري أمد ما لا حكمو أميروها مسودات كان أميروها مركز عيدا كيسيبو كويري ودات كما قال لنا سوق لي واكما مركز لقول عبد الله بن مبارك با سوق لي عالم كي ري خراسانا الزاهد كي محدث كي هابا سوق لي مركز ابو الزبيد كويري لا اسك جيفسو اسك فدي بغود عقلكاغا انا كو قلفتان حكونا علماءنا قلوبتي حكمانه انا كو قلفتان حكونا علماءنا حقي حكمان علماء قلوبتك يا كحدن ما دام علماء إلهي كحدن تهي أياك أنا قلوبتك بدك إلهي كسو حديا زمن كاس بدك وحال لقو قدرني ولا لقو قيميني إيمانك لقو قيميني علمك لقو قيميني أخلاقك وناكسن لقو قيميني نين يهودية أيا إراقل كيغا وانقضيا ونيبينيا ميقات كو قدي سابا لقو يري وحيد بقولي 20 كن ودرهم ما كو قديا مركاسا لقو يري 20 كن ومعقول لكن بقولك كنا دول سارة محيطها لقو يري وحيد 20 كن وأقل قيمه سوى رمتين لكن بقولك كن وحويان والدرس لماذا أن الدرس سيسان عبد الله بن مبارك بالدرس لأهي مركا الدرس لماذا يسا أيا كو إيمان يا بقولكم بور بقولكم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه نبي عليه الصلاة والسلام صدح جرب إلهي كدارته وحيري والله با كدارته إيمان ملأ والله با كدارته إيمان ملأ إلهي من رمين والله با كدارته إيمان ملأ يا رسول الله وأيضا لقول قفكاسي وقفك الجاركيس والشركيس أي كنا بتقلي وأيام قفكاسي إلهي آخر من رمين برسولك يلي أخلاق ده وناكسن سلاسة لوك يبسنة يددك أخلاق ده وناكسن درس لماذا ده dadka dhaqanka wanaagsan ilaahay ku xidhan sidaasay ummaddu ugu xidhnayd sidaasay maaragtaan masaajidda ummaddu u soo camiraysay yaa falidaalika walaalayaal ilaahay naguma qiimeynayo qabiil ilaahay bini'aadanka kuma qiimeynayo haddii qabiil lagu qiimeynayo cid abaalahab nabi maxamed adeerkii buu ahaa abu taalibin nabi maxamed adeerkii buu ahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuniya weeyaan alhaadi hanuunkana ilaahay isagaa bixiya إله عز وجل أبو لهب أقدري إنه قال لما كنت انتو بلال الحبشة هداية الله أقدري إله سهنونيا أرقى من سماهم ررقات كده لا تماها وحي لا يكون مينيو ما ددتكم أنت أي سكوك قدرين يان هبلكي العقد بنا هبلكي فوق وين الكاكدستي هبلكي ورشدها بدل لها هبلكي درجة وين لها هبلكي قوارد وين لها هبلكي دكانة وين لها هبلكي بخارة وين لها ما كذا بس قبرك سيارة نواك ما كذا بس أر ما كذا بس قبرك سيارة أنا واكن قبرك سيارة أكل الذي فوق التراب تراب وحنا الرد الدنيا لواعيد واعيد
ciidna waa ku noqonayaan. dhulku waa ciid, aqalladu waa ciid, gawaadhidu waa ciid, adigu ciid baa tahay, lacagtu waa ciid, dharkaagu waa ciid, cunnadaadu waa ciid, daarudu waa ciid, qusuurtu waa ciid. aaway dadkii adduunyada soo camiray aaway? nin baa soo galay magaalada, markaasuu nin sheekhuu arko wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd ii dhexgey, magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee, magaaladana waan ku cusubahay igee. ibraahim aladham baa kaxeeyey, allah u naxariistee. magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha isoo raac. uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray. markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa, adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye. wuxuu yidhi magaaladii camirnayd waa dhowdahay ina mari. qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi. wuxuu yidhi waa qabuurihiye. wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto, cidda timaadda kama noqoto. laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda, halkana yimaadaanoo halkana camirmaysa. dadka halka soo galana ma noqdaan buu yidhi. taa way naaqusmaysaa, tanna way biiraysaa buu ka yidhi. yaa muqafal, innaku waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay. magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaya. magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya? bal iga jawaaba. qabuuraha camirmaya. waayo dadka magaaladan ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya. laakiin dadka qabuuraha gala, qabuuraha kama soo noqdaan iyaku. marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa, tan laga baxayo dadkeegu way sii yaraanayaan, ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa. waa qabuuraha weeyaan, waa qabuuraha. habeenada ka mida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'miniin caaisha radia allaahu canha aqalkeedu nebigu jiifay. markaasuu nebigu ku yidhi caaisha, caawa ma iska kaydayn ilaahay han caabude? markaa bay ku tihi ha iska cibaadayso. deedna nebigu intuu saro kacay buu tahaaro qaatay, uu qubaystay, deedna u weysaystay. salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam. salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey. deedna caaisha radia allahu canha waxay tihi waan gam'ay, in yar kadib baan soo kacay, aqalkii baan taataabtay, agtaydii nebigu ma jiifo. waan eegay, ma taagna, nebigu ma joogo meesha. waxay gala dareenoo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kalu caawa u guro, uu reerihiisii kalu u tegey. markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya. markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay. markaasaan fikiroonaysa alla caaishaay, waad ceebowday maanta, adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga, oo waxaad istiri nebigu reerihiisii kale reer ka miduu kollay u tegay bal doondoon. nebi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay uu ooyaya. muntasif alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado, aakhiradu nebigu xasuusanaya. daadna markaasay caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkeygii soo gashay, gogashiiba hoosta ka gashay. markaa nebigu waa u jeeda calayhi salaatu wasalaam. min mucjizaatihi waxaa ka mida baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi. daadna markaasuu nebigu markiiba u arkay, uu iska soo noqday. deedna ugu yimida caaisha oo gogashii markaa firaashkii hoosta ka gashay buu u yimiday. markaabuu nebigu kor fadhiistay, wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeedee? markaabay ku tiri waxba. markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha iyo daba yimiday maa? markaasay tihi yaa rasuul allah, adiguna waadi kalaad socotaa, annaguna waadi kalaa socnaa bay ku tiri. adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhire iyo qabuur iyo maaragtaane xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa. annaguna bashar baanoo dumar baano waa iska maseeraynaa baa tiri. raalli ah oo iska saaxay ku tidhi. waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo, noloshaada adduunyadu way toosnaan. haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay, aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo, in la dhimanayana aad ku xisaabtamaysid,
xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaataa waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka u horraysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisaana waxa u sababa waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamaayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyadu waxay noqonaysaa kacakuf waad kacakufi noloshaada diintaaduna waxay noqon istiqaamo ma yeelanaysido diinta istiqaamo ku yeelan maysa diinta istiqaamo inaad ku yeelataa oo diintaada ku toosnaataa alla ka cabsi baa u shardiyaya iyo maaragtaan inaad aakhirada kula weynaato saciid ibn zayd radia allahu canhu ayaa waxaa ka soo cabatay islaan duqa amiirkii mu'miniinta cusmaan bay u timiday markaa bay ku tiri saciid ibnu zayd ninka la yidhaha dhulkaygiibuu qayb iga qaatay weliba ceelka biyahay halkaa ku yaalan aniga alla bay ku tidhi cusmaan binu cafaan baa u yeedhay saciid ibnu zayd abalacwar wuxuu ahaa nin ducadiisa la aqbala buu ahaa 10kii jannada loo bishaareeyey buu ka mid yahay deedna markaasuu u yeedhay wuxuu yidhi islaantan duqda hiblaayaa kaa cabanaysa waa kaa ashkatoonaysaa oo maxay kaga ashkatoonaysaa waxay leedahay dhul aan leehay buu iga qaatay waa dhulka halkaaya weeyaane dhulkiisa xiga weliba ceelka biyaha leen meeshiisa ku taalana aniga alla bay tidhi saciid allah raalli ka noqday wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin anu labadaydaa dhagood waxaan ka maqlay oon kaga maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh taaka in leeg oo dhul xaqa naasa qofka xaqdarra ku qaata buu nebigu yidhi waxaa lagu ciqaabaa aakhiro 7 dhul ayaa silsilad intoo ku xidho qoorta loo geliyaa silsilad intoo lagu xidhaa qoorta loo sudhaa deedna waxaa lagu amraayo lagu ciqaabaa inuu jiiduu la kaco mana jiidi karaayo hadalka aanu nebi maxamed ka maqlan may kula tahay dhul dad leeyahay inaan gardarro ku qaadan gacmuhu cirka u taago wuxuu yidhi ilaahu hadday igu been abuuranayso indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane ceelkaa ay sheeganaysana ilaahu qabrigayga ka dhig buu yidhi siiya buu yidhi dhulkay sheeganaysay iyo ceelkiiba siiya laakiin waxaan kuu sheegayaa cumaanow xadiiskaa nebi maxamed anigoo ka maqlay may kula tahay adiga dhul bini aadan leeyahay inaan qaadan anu haba qaadatay siiya waxaale dhulkii waa la siiyey maysan dhimanin ilaa iyadoo nool baa ilaahay indhihii ka qaaday markaasay odhan jirtay habaarkii saciid binu zayd baa igu dhacay iyadoo socoto oo habeen sidaa u socotay laweyn indhalaada ee beerteeda dhex wareegaysana ceelkii ay sheeganaysay isaga ka qaadatay bay ku dhacday halkii baa laga dhigo qabri looga dhigo lagu asalay dul xaqa naas inuu dhaco waxaa ka hor taagan waa maxay xadiiska nebi maxamed uu maqlay calayhi salaatu wasalaam yakhaafuun aakhiray ku xisaabtamayeen ilaahay la kulagiisay ku xisaabtamayeen yowmaydin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiya qur-aankaa ilaahay ku sheegay qiyaamadu waa maalintee waa maalinta khalaa'iqdoo dhan la soo saaray ilaahay loo bandhigi doono banka qiyaamaha la joojin khalqiga ka xisaabayana waa ilaahay 3 siyaabana waa lagu soo saaray khalqiga qolada u horraysa buu nebigu yidhi fawja raakibiin qola qabuuraha markay ka soo baxaanba fardaha jannada loo keeni buu nebigu yidhi deedna carshiga ayaa la hoosgeynayaa
qolana waxa uu nabigu yidhi waa maashiina calaa arjulihim labadooda lugood bay ku soconayaan ilaa iyo maxsharka halka khalqiga lagu xisaabayo qolada saddexaadna buu rasuulku yidhi wejigay ku soconayaan buu nabigu wejigooda min saxaabi ayaa hadloo yidhi nebi allow sidee wejiga loogu socon doonaa markaa buu nebigu yidhi ilaahay bini aadanka arlada dusheeda lugaha ku socodsiiyey waa qaadir inuu maalinka mujrimiinta madaxa ku socodsiiyo wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim summan wacumyan wabukma maawaahum jahannam kulamaa khabat zidnaahum saciiran baa ilaahay yidhi dadkii mujrimiinta ahaayee adduunka dusheeda mujrimiinta ahaayee dunuubta badnaa ee ijraamka iyo macaasida iyo qafnad iyo diinla'aanta ku jiray banka qiyaama ayaan soo saari doonaa baa ilaahay yidhi iyakoo aan maqlaynin oo aanan arkaynin oo aanan hadlaynin saddexdaaba waa laga xidhi doonaa markaasay madaxa ku soconi doonaan dabeedna markaasaa jahannama lagu guri doonaa jahannamo marka holaceegu uu ka u naaqusmaba baa ilaahay yidhi saciiro ayaa ku hurinaynaa baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah saciira waa naar naaraha ayay hurisaa dabeedna halkaasaan ku hurin doonaa baa ilaahay yidhi hadday naarta ay galaanna uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana dhimanayaan mana noolaanayaan waayo dhimashadu waa nolosha adduunyada ee lagaga tagaa mooyaane aakhira haddii mar la tego dhimasha ma jirto ee qolana naar bay ku waariyaysaa qolana janno ayay ku waariyaysaa kuwa jannada ku waariya allah inaga dhigo yowma naxshuru lmuttaqiina ila alraxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ila jahannama wirda yowma naxshuru lmuttaqiina dadkii ilaahay adduunka dusheeda kaga baqaayay waxaa soo xashrin doonaa baa ilaahay yidhi yakoo wufuuddu markay imanayso waa laga hor yimaadaa gawaarida ugu fiican baa loo keenaa huteelada ugu qurux badan baa lagu soo dhoweeyaa waddooyinka magaalada ugu qurux badan baa la mariyaa dharka dhar ugu qurux badan baa loo xidhaa marka la soo dhowaynayo dadka akhyaarta magaalada ayaa soo dhowaysay akhyaarta wufuudda ilaahay maalinka qiyaamaha la leeyahay muttaqiinta iyakoo wafdiga ayaa soo xashrin doonaa markuu ilaahay leeyahay wafdiga ilaahay maxaa lagu soo dhowayn baad u malaynaysaa wafdiga ilaahay allah inagu daro daamiin dhahada ayaa u diyaaray wafdiga ilahay in lagu daro yowma naxshuru lmuttaqiina ila alraxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda waan ku aroorinaynaa baa ilaahay yidhi jahannama kuwee mujrimiin kuwii ijraamka samaynayey kuwii dunuubta badnaa ee gaalada ahaa naarta jahannama ku aroorinaynaa baa ilaahay yidhi aroorin xoolaha marka la aroorinayo darka lagu aroorinayo xagga dambaa laga soo maraa mujrimiinta maadaama naar la geynayo malaa'igtu xagga dambe ka garaacaysaa amaa muttaqiinta maadaama janno iyo loo wado ilaahay rudihiisii wufuudda iyaka way ka hor iman doontaa baa layidhi xagga horaa laga iman doonaa iyaka laa yaxzunhum alfazacu alakbar watatalaqaahum almalaa'ikatu hada yowmukum aladii kuntum tuucaduun laa yaxzunhum alfazacu alakbar argagaxa weynee dhici doona baa ilaahay yidhi dadkii mu'miniinta muttaqiinta ahaa argagaxaasi ma saamayn doona baa ilaahay yidhi ma argagixinayo watatalaqaahum almalaa'ikatu malaa'igta ayaa ka hor imani doonta oo soo dhowayni doonta oo istiqbaali doonta oo maxay ku ohan doonaan haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun maalinkan waa maalinkiinnii aad ahaydeen kuwa loo yaboohay maalintii abaalmarinta weeyaan layna abaalmarinayo yowma natwi الsamaaءa kaطayi الsijili lilkutub kama bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kuna faaciliin samada waan qaadaynaa baa ilaahay yidhi xaashadda kitaabka ku taalla markaad akhrisataan sidaad u rogtaan baan u rogaynaa baa ilaahay yidhi samada kamaa bada'na awala khalqin nuciiduhu abuurku siduu marka hore ahaabaan ku soo celini doonaa siduu ahaa aadam calayhi salaam markii la abuuray dhar ma qabin adiga markii hooyadaa ku dhashay dhar maad qabin
sidii lagugu abuuray baad ku soo bixin doontaa wacdan calaynaa baa ilaahay yidhi ballankaana annaka ayaa qaadnay baa ilaahay yidhi innaa kunnaa faaciliin ay qaadiriina baa ilaahay yidhi bani aadamka sidoodii inaan ku soo celinnaa awooddaa waan leenahay baa ilaahay yidhi iyakoo cagaagan oo qaaqaawan oo dharla'aan oo dhar qabin inaan banka qiyaama soo joojinno waan karnaa baa ilaahay yidhi ballankaana annaka ayaa qaadnay waanan buuxin doonnaa baa ilaahay yidhi ballankaas maanta adduunyaad joogtaa laakiin berritoola aakhiraad tegaysaa laakiin qof walowba waxaad ka fikirtaa ilaahay maxaad noo hortegaysaa waxaad adduunyada ka qaadato khayr iyo shar unbaa aakhiro lagugu sarrifi doonaayo ogow ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiimin haddii adduunka dusheeda ilaahay aad ka baqdana naciim baad ku sugnaanaysaa haddii fujaarta dariiqay mareen aad martana waa jaxiim waxaad ku sugantahay ogow labadaa qola midkaa tahayn adigu isqiyaas marka ilaahay innakaa u baahan han kaa cabsanna ilaahay han u soo noqonno han toobadkeenno cafa allaahu camaa salaf wixii gafi naga dhacay horey inooga dhacayna ilaahay waa ghafaar weeyaan ilaahay waa ghafuurun raxiim waa dhaafid badane naxariis badan weeyaan yaa raxmaddiisa laga quusan ilaahay albaabada naxariistiisa han garaacno saacadaha dambe habeenkii waa saacatu lijaaba ayaa ilaahay addoomihiisa u dhawaaqa u yidhaahdaa ayaa toobadkeenoo toobadda ka aqbalaa ayaa waxay weydiisanaya oo siiyaa ayaa dembidhaaf doonayu dembigiisa dhaafaa saacadaha haddaan kacnoon baahideenna ilaahay u sheeganno ilaahay baahideenna waynoo buuxinayaa dunuubteennana ilaahay waa inaga dhaafayaa waraxmatii wasicat kulla shay naxariista ilaahay way ballaadhan tahay ka quusan mayna ilaahay raxmaddiisa camalkaaga hagaaji laakiin camalkaaga ha tala saaran bay culimmadu ku leeyihiin iimaankaaga iyo taqwadaada iyo diintaada dhis laakiin diintaada haddana ha tala saarane waxaad tala saarataa ilahay raxmaddiisa tala saaro qaaribuu wasadiduu camalka xidhiidhiya buu rasuulku yidhi sunnadana camalka ku toosiya lanna diin markay noqoto dariiqat almustafa baa diinta iyaa ilaahay loogu maraa dariiqad kaloo ilaahay loo marayaa ma jirto waclamuu ogaada baa nebigu yidhi midkiinna camalkiisa ku nabadgali maaye qiila walaa anta adigana kolay noqotona baa nebiga lagu yidhi walaa ana anigana kolay noqoto baa nebigu yidhi ilaa ilaahay raxmaddiisa i huwiye mooyaane fa ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno hanu soo noqonno han toobadkeenno insha allah dhahada insha allah dhahada yaa u diyaaran toobadkeenno natuub ila allah waxaa ka toobadkeenaynaa waa maxay khafladda macaasida way badatay maanta khafladdii way badatay waxaa kaloo ka toobadkeenaynaa diinta dadaalkayga ee aan ka fadhiisanina waa ka toobadkeenaynaa diinta dadaalkayga qof kastoo muslima diinta xil baa ka saaran rajulun duu himma yuxyi allahu bihi اlumma haddaad himmad caaliya aad leedahay himmat اlculya oo aad leedahay anigu diin baan adduunyada ka qaadan diintana waan ka shaqayn karaa waan baran karaa waan ka shaqayn karaa waan ku dhaqmi karaa diinna adduunyada waa ka qaadan hadday himmadda adigu aad leedahay ilaahay tabaaraka wa tacaala himmadaada ku gaadhsin una ku tusin diintana xil baa inaga saaran diinta xilka mas-uuliyadda diineed culummada keliya ma saarno qof kastaoo muslim waa shahaadanaya diinta inuu ka shaqeeyo waa mas-uuliyad saaran weeyaan marka shaqada diintuna wasaa'il badan bay leedahay
madrasad buu hayaa macallin diintii buu ka shaqaynayaa sheekh darsi buu ka maranayaa miskiid diintii buu ka shaqaynayaa masaajid buu khudbadda ka akhrinayaa diinta shaqadeedii uu hayaa waa mu'adin miskiid buu ka adimayaa waa daaci weeyaan ummaddu salaada ugu yeedhayaa jaamacad ilaahay dartii u baxay buu raacayaa waa daaciyo diinta shaqadeedii buu ka shaqaynayaa diinta shaqadeedu anwaacyo fara badan bay leedahay wasaa'ilu dacwa way fara badan tahay fanajtahid waa inaad daaci noqotay haddaad daaci noqon weydo adigaa lagu yeedhi xaqa haddaad ka shaqayni weydo baatilkaad ka shaqayni masjidka haddaad camiri weydo maqaayad iyo suuqaad camiri haddaad islaamnimada u ficiltami weydo qabyaaladaad u ficiltami haddaad ummadda ilaahay xaggiisa ugu yeedhi weydo makhluuqa xaggiisaad ummadda ugu yeedhi meel dhaxaad ma jirto meel dhaxa isma taagi karaysa ima waa inaad noqotaa daaci waa inaad noqotaa dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhaya haddaad adigu yeedhi weydo adaa lagu yeedhi ku salliya rasuulka fadhiista dee fadhiista may sidaa maaha fadhiista walla miskiid weeyaan meesha dee shaqada diinta kulligeen diyaar ma unahay insha allah yaa ahla baydhaba diyaar ma nahay insha allah khayr baa inaga muuqda khayrkaana waa nagu ogeyn 20 sano ka hor baan imid magaaladiina 20 sano ka hor 2001 markaasaa igu horeysay annagoo jamaaca sida maanta magaaladu u camiran tahayna beriga uma camirnayn marka allaha amniga iyo arsaaqadaas iyo khayrka iyo maxabada diineed iyo masaajida ilaahay noo dhisay iyo culimada dadaalaysa allah inoo sii barakeeyade aamin hada insha Allah inaan jamaacada ilaahay dartii u baxaya inaad waqtigaad fasaxaysataan aad baxdaan oo raacdaan ayaa u diyaar dhammaanteen soo diyaar ma nihin dambigeena allah dhaaf anigu ma yihi caalim sheekhna ma yihi ardayna xataa ma yihi ardaynimadana waa ka sii hooseeya jamaacada tabliiqa waa iska taqaanaanoo sita sifaadka iyo tuulooyinka la wareegaan sita sifaadka culamada waxaa ku nidhahnaa sheekh inagu waxaa tihiin jumlalayaal baa tihiin cilmiga jumlad baad ku bixinaysaan laakiin jamaacada tabliiqna waa tafaariiqlayaal ganacsataduna waa labadaa qaybood waa isku baahan yihiin soo maahinde qolo jumlad ku keenta iyo qolo tafaariiqlayaala marka annagu tafaariiqlayaal baana culimo ma nihin xadiiska iyo aayadda qur-aanka culimmada ka maqalaa kolba tuulo la marnaa kolba maqaaxin la marnaa dhallinyarada u sheegnaa marka dadaalka inaan gacmaha isku qabsanno soo diyaar ma nihin dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo dad badanoo walaalaheena xanuunsane oo duca dalbaye caafimaad sariica allaha siiyo qof walba kurbada haysatana halkay ka haysata allaha ka faydo kulankeenana allah inaga aqbalo ilaahay ha inaga aqbalo hadalka anigana ay soo dhex maray allaha miisaanka xasanaadka ii saaro ininkana xuduurka wanaagsan aad ka soo qayb gasheen miisaanka xasanaadka allah inii saaro culimmadeenna ajillada walaalaheen ilaa maanta saan u imanay saasay noo hayaane iyakana cimrigooga caqligooga cilmigooga allah barakeeyo shaqada ay hayaanna allah uu sii aqbalo isma haday kare allah ina hadeeyo wa sala allahu calaa sayidina muxamed